Klokka 21. Alle valglokaler I landet nå stengt. Alle stemmer avgitt og et resultat for stortingsvalget 2025 beseglet. waxaa sagaalkii fiidnimo ee habeennimadii xalay ahayd la soo gabagabeeyay doorashadii guud ee ka dhacaysa dalka Norway taa oo ay ku tartamayeen xisbiyada kala duwan ee loo kala qaybiyay labada group ee bidix iyo midig waxayna guushu raacday xisbiyada bidixda oo afartii sano ee tagtay dalka soo maamulayay guushan ayuu sheegay ra'iisul wasaarihii hore ahna ra'iisul wasaaraha cusub ee afarta sano soo socota hogaamin doona dalka Norway Jonas Støre in ay uga dhigan tahay mid weyn isaga xisbigiisa taageerayaashiisa iyo Norwayba doorashadan ayaa lagu soo doortay 169 xildhibaan ee matali doona 19 deegaan doorasho oo guud ahaan dalka Norway ah 169 xildhibaan ee aayaha Norway afarta sano ee soo socota ka arrimin doona ayaa waxaa ka mid ah laba xildhibaan oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya xildhibaanad Maryan Xuseen oo ka socota xisbiga SV ayaa magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway waxa ay uga soo baxday codad gaarayo ilaa iyo 30,000 oo cod taas oo ka dhigtay xildhibaanada koowaad ee xisbigeeda maadaama qofka ugu soo dhow xisbigeeda uu helay 15,000 oo cod dhanka kalena magaalada Fredrikstad ayaa waxaa ka soo baxay xildhibaan Hashim Cabdi oo ka tirsan xisbiga AB oo helay ilaa iyo 15,500 oo cod ka oo u suura gelisay in uu ka mid noqdo xildhibaanada hormuudka ah xisbigan talada dalka hayo magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway ayaa iyaduna iskoor gaara xiratay kadib markii ay ku guuleysatay in ay soo saarato xildhibaanada ugu da'yar afarta sano ee soo socota baarlamaanka Norway taa oo noqotay Frøyda Schelde xildhibaanadan 19 jirka ah ayaa noqon doonto xildhibaanadii ugu da'da yareed ee baarlamaanka Norway soo marta hadaynu nahay bahda Somali Voice in Norway ayaan waxaan wax ka weydiinay xildhibaanad Frøyda dareenkeeda ku aadan in ay kursigan ku guuleysatay waliba iyadoo ah xildhibaanada ugu da'da yar baarlamaanka Norway waxa ayna sheegtay in ay ku faraxsan tahay sidoo kalena ay u mahad celinayso dadkii soo doortay codkoodana ay la fadhiisan doonto baarlamaanka oo ay si dhaba u matali doonto waxaana hadalladeeda ka mid ahaa Att ett palestinier och förtryggande så det är bara det som så det vill jag säga att jag ska göra mitt allra bästa för att följa upp det hårdare som folk har haft för mig och hos mig så då jag lovar jag bekämpa för att jag ska vara deras samhällssätt. dhanka kale Xasan Bile oo ka tirsan xisbiga cagaaran kana tirsan golaha deegaanka magaalada Bergen ayaa wax ka weydiinay guusha xisbiyada bidixda ee ay bahwadaagta yihiin iyo xisbigiisa xildhibaanada u soo baxday waxaana hadaladiisa ka mid ahaa waxaan tagnay labada kun iyo 14 jikra ka dibno ay daabkaas faraga saamooyin taano waxaan go'aansanay shirooyin inay ka mid noqoto baarlamaanka wadanka waxaan ku faraxsanahay in jilkaha guddiga ee gudoomiyaasha dowladda soo saaray shirooyin ka mid noqoto baarlamaanka faskan ee aad baayay waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan xisbiga cagaaran ku guuleystay inuu Norway ku ilaaliyo in la dhiso dowlad loo dhoweeyo fikrada waxaan u hambalyeeyay dhammaan xisbiyada ay soo baxay siyaasadda dhinaca dhexe isla mar ahaantaana ka shaqeynaya siyaasadda loo dhoweeyo waxaan sidoo kale u hambalyeeyay xisbiyada ku guuldareystay waxaan leeyahay in kasoo qalbay xisbi xog badan uu yahay baarlamaanka haddaba haddaynu nahay bahda Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaan u hambaleynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Norway Jonas Støre iyo xisbiyada bidixda oo guul taariikhi ah ka gaaray doorashadan oo ahayd tii ugu adkeyd ugu xiisaha iyo xamaasadda badneyd halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idin la socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine